كسو دوادا مننمو تي في waxaan wareysi gaar ah la yeelan doonaa kuna wareysan doonaa barnaamijka fagaaraha mudane ka tirsan baarlamaanka Kenya waa xildhibaan Aadan Barre Ducaale oo laga soo doortay bartamaha magaalada Garissa ahna hogaamiyaha aqlabiyada baarlamaanka Kenya mudane kusoo dhawow barnaamijka soo dhawaada Minimo TV xafiiskayga aan ku leeyahay baarlamaanka Kenya oo ku yaala magaalada Nairobi waa mahadsantahay mudane ugu horeyn waxaan jeclaan lahayn maadaama dadka badankiyo Kenya ku nool ay ku wada garanayaan Soomaalida qurbaha ku nool inaad daqiiqad ama laba isku barto taariikhdaada bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ahay siyaasi Kenyan ah oo laga soo doortay 3 jeer degmada horaan la dhihi jiray Dujis haddana loo bixiyay magac cusub oo Garissa Township magaalo weynta magaalada Garissa oo Soomaali qabiil kasta ku nooshahay iyo dad kale oo ajnabi oo Kenyan ah waxaan ahaan jiray wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha dawladii isbahaysiga madaxweyne Mwai Kibaki Raila Odinga ka bacdi ani iyo madaxweyne ku-xigeenka hadda wadanka William Ruto ayaa sameynay xisbi la dhihi jiray URP United Republican Party oo baarlamaankii hore oo 11aad ka bacdi dawladii madaxweyne Uhuru Kenyatta hore ayaan fursad ii siisay inaan noqdo qofkii ugu horeeyay wadanka Kenya oo dastuurka cusub qodobka 108 oo ansixiyay xafiiska gudoomiyaha aqlabiyada baarlamaanka markuu wadanka Kenya uu aqbalay inuu isticmaalo ama uu system kale yiraahdo presidential system oo Mareykan kale ayaa kursigaas ayay xisbiga Jubilee igu magacaabeen oo baarlamaankii hore baarlamaankan hadda 12aadna ayakoo zaid u mahadsan shacabka ku nool magaalada Garissa ayaa taqriiban dhowr iyo 24,000 oday siiyeen dib ay soo doorteen waxay ugu soo doorteen waxqabadkeygii xagga ummadda iyo diinta iyo bulshada iyo magaca Soomaaliyeed haddana mar labaad xisbiga aan ka soo joodo oo madaxweynaha uu hogaaminayo kalsooni labaad ay siiyeen inaan mar labaad aan noqdo gudoomiyaha aqlabiyada baarlamaanka ee wadanka Kenya marka hadda mar labaad ayaa waxa tahay hogaamiyaha aqlabiyada baarlamaanka Kenya nacam واتاي بعدما Garissa laga soo doorto mudane ilaa iyo hadda muddo xileedka waxaan filayaa inay tahay 3 xilli doorasho inaad Garissa u tahay xildhibaan nacam ilaa iyo hadda maxaad u qabatay reer Garissa oo la tilmaamay alxamdulillah kollaba su'aasha waxa fiicnayd in la weydiiyo shacabka reer Garissa Soomaalida waxay ku mahmaadaa nin is amaano ri'is nugta ka qiimo badan laakiin maadaama aan sheego horumarka magaalada Garissa ay gaartay magaalada Garissa marka xildhibaan noqonayay 2 kilomitir oo wareeg oo laami ayay qabtay magaalada Garissa man taqriiban ilaa 45 kilomitir oo laami ayaa ka dhisan oo waqtigiga la dhisay magaalada Garissa markii aan noqonayay xildhibaan kulliyad nooc ahaataba ee jaamacad may qabin maanta waxa ku taala jaamacadii ugu horeysay ee laga furo gobolka waqooyi bari muddo 4 sano ah waxa ku taala kulliyada caafimaadka waxa ku taala kulliyada macallimiinta lagu tababaro waxa ku taala kulliyada weyn oo National Polytechnic oo farsamo yaqaanka ay wax ku bartaan markii la dooranayo taqriiban waxay Garissa waxay lahayd iskoolada sare 3 bay lahayd maanta taqriiban dhowr iyo 10 iskool oo sare oo dawladda ay leedahay ayaa ka dhisan madaarista xagga diinta markaan u kaco oo Soomaalida xoolaha leh ilaa xoolaha u badiyo ay u garab istaageen 9 sano inaan diinta aan kor u soo qaadno markii la dooranayay 2008 magaalada Garissa waxay lahayd madaaris taqriiban gaarayso 3 ilaa 4 oo thanaawi iyo cadaadi maanta ilaaha mahad leh iyo culimada iyo ganacsatada
oo aan iskaashanay maanta magaalada Gaarisa waa magaalada keli ee Soomaalida degaan oo taqriiban ay ka dhisan yihiin ilaa iyo 33 madaaris oo u kala baxaan cadaadi iyo thanaawi maanta waxaa ka dhisan magaalada Gaarisa jaamacadda ugu horeysa oo islaamiga al-mustaqbal intaasoo masaajidaan ka dhisnay intaasoo dugsiya iyo xafidul quraanka lagu barto ayaa ka dhisan magaalada Gaarisa markii la dooranayay korontadeeda waxay ku xirneed midda injimada qaylina oo damaysi maanta magaalada Gaarisa waxay ku xiran tahay korontada weyn ee wadanka National Grid madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa tagay oo soo furay maanta magaalada Gaarisa iyo ilaa iyo gobolka waqooyi bari wadada u dhaxayso Gaarisa ilaa iyo Madoogashi maanta waa laamiga waxaa loo sii wadaa Madoogashi ilaa Habasweyne ilaa Wajeer korontada Gaarisa hadda tagtay waxaan rabnaa inaan gaarsiino ilaa iyo Wajeer iyo Mandera magaalada Gaarisa hadda waxaa laga dhisay oo kul la furaya korontada soo saarto qoraxda mashruuci ugu weynaa Afrika idil cadceedda ku shaqeyso oo la rabo inuu soo saaro taqriiban koronto lagu qiimeeyay Gaarisa ilaa 50 megawatt oo dawladda Shiinaha iyo dawladda Kenya ay marka intaasoo arday oo taqriiban gaarayaan 10,000 ayaan baasir ka bixi maanta arday fara badan oo Soomaaliyeed oo jaamacadaha dhiganayeen oo takhaatiir soo dhameeyeen injineer ayaa ka faa'iideen mashruuci aan bilaabay 2008 intaasoo arday aan u diray scholarship wadamo fara badan oo had soo noqdeen Algeria Shiinaha marka wali ma dhameeyay shaqadeedii laakiin shaqadaana ku dii waxaan u qabanayay maadaama fursad la siiyay marka wax asxaan hadda weyn oo dad u qabta mooho waa shaqadii ay siiyeen ayaan qof hadii xoolo raaciyo xoolii waa inuu soo dharjiyo oo ayakoo nabad uu soo celiyo somaha marka maadaama mas'uuliyaddan ay tahay mid aakhira lagu weydin waxaan ilaahay ka baryaynaa inaan mas'uuliyaddanada ay noqon mas'uuliyad lagu qasaaro ummadda Soomaalidana meel joogtana xildhibaan aan u hay markii waddanka Kenya imaadaan marka Nairobi ha joogaan magaca gudoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka waa magac weyn marka waxaan dhahaa kuwana way ku faanaan kuwana way ku fuudaan Soomaalidana waxaan ku dhahaa magaceeya wixii wanaag ku jiro isticmaala aadan baraan la dhashay aadan baraan qaraabanahay dhaha hadii hata inaan arkin hadii waxa ku helaysiin marka ummad badan baa hata markay booliiska dhibaan ay dhahaan aadan baraan garanayna ee booliiska Kenya ka carraan marka insha Allah waxaan leenahay kursiga iyo madaxnimadan hadda aan ku fadhiyana waa madaxnimo ummadda Soomaalida iska leedahay waa mid ummadda Kenya iska leedahay marka ummadda Soomaalida ayaan annaka u haynaa ayaka codkooda ku helnay qorax bay noo istaageen line dheer bay noo galeen ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu hoggaanka uu noqonin hoggaan lagu qasaaro laakiin hoggaan uu noqdo hoggaan ummadda iyo waddanka iyo gobolka iyo diinta anfaco waata mudane maadaama aad tahay hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka sidoo kale aad ku timid awoodda xisbiga Jubilee uu ku dhex leeyahay baarlamaanka nacam waxaa jirta gudiyo ka tirsan gudiyada baarlamaanka oo xilalkii laga qaaday nacam sababta arintaas ay ku dhacday waxaad nagala wadaagi kartaa waa su'aal fiican waana hadda sheekada waddanka Kenya ka jirto asbuucan xisbiga 2015 asagoo hogaaminaya madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaan damacnay inaan siyaasiga waddankan aan bedelno siyaasiga waddankan wuxuu ku dhisnaa xisbiya ku salaysan ama qabiilka ama ku salaysan gobolada ay dadka ka imaadeen marka waxaan damacnay inaan dhisno xisbiya ku dhisan wadani oo qolo kasta iyo gobol kasta iyo diin kasta ay qayb ka qaadan karto oo xaqeeda equity laga heli karo xisbigii hore aan madaxweyne ku-xigeenka aan la aasay waxaa la jiray URP xisbiga aan
madaxweyne Uhuru Kenyatta waxaa la jiray TNA labada xisbi ayaa u horseedeen 12 kale xisbi waan isku keenay waan isku darnay hal xisbi baan ka soo saarnay oo la yiraahdo Jubilee xisbiga Jubilee wuxuu ku dhisan yahay in qofka Soomaaliga iyo qofka kale oo wadankan qabiilada 47 degan iyo diimanka faraha badan iyo gobolada in si cadaalad ay xisbigan lagu maamulo marka golaha maamulka baarlamaanka Kenya xisbiga Jubilee wuxuu madax u yahay taqriiban ilaa iyo 27 gudi gudiyadan aniga madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo xildhibaaninta anaga Jubilee waan fariisanay waxaan soo saarnay in gobol kasta qayb laga siiyo marka sidii aan rabnay way u dhacday ilaa 4 gudi ayaa xildhibaanin ka imaadeen gobollo kale ayay qaateen kuraas ay lahayn oo loo qoondeeyay waxa kamid ahaa kursiga loo qoondeeyay gobolka xeebta kursiga loo qoondeeyay gobolka waqooyi bari marka ay taa dhacday waxay nagu noqotay maadaama aan xisbigana uu ku dhisan yahay wadani iyo cadaalad iyo midnimo waxay nagu noqotay inaan khaladka aan ogolaanin oo khaladka aan saxno marka shalay ayaan gudiga u yeeray maadaama ay gudoomiyaha baarlamaanka waxaana dhahay khaladka in la saxo shalayna waa la saxay 4 qof oo si cadaalad darra kuraas ayaka ay laheen oo gobollo kale ay leeyihiin qaateen shalay waan ka soo celinay marka doorasho ayaan sameeynaa usbuuca dambe oo la rabo in lagu celiyo kuraasta dadkii xaq u lahaa xildhibaaninta ka soo imaadeen gobolka waqooyi bari kuwii xeebta kuwii Nairobi iyo meel kale mudana waxaad faahfaahin naga siisaa waxbarashada bilaashka ee ay dawladdu ballan qaaday dawladda Jubilee 5 sano hore waxay haysatay manifesto ama ballan qaad ay dad u sameysay waxa kamid ahaa treenka casriga oo ka imaado magaalada dekada ee Mombasa ilaa iyo Kampala oo hadda soo gaaray Nairobi oo u socdo ilaa iyo Kenya kale ilaa iyo Kampala oo aan ku guuleysanay 5 sano hore waxaan ka shaqeynay inaan oo ballan qaadnay inaan nabadgelyo wadanka sugayno 5 sano soo dhaafnay sanad kasta waxa la shaqaaleynayay 10,000 oo dhalinyaro ah oo ciidamada booliska iyo militariga iyo intelligence ka galayeen 5 sano hore waxaan ballan qaadnay inaan militariga iyo booliska Kenya la qabaan qalabkooda casriga baabuurta ku dib loo gaday waxaan kaloo soo dhaafnay aan ballan qaadnay in hooyooyinka wadankan ay isbitaalada ku umulayeen ayagoo lacag la weydiin oo bilaash hadda waxaan joognaa 5 dambe 5 sano hadda aan bilownay waxa ballan qaad aan sameeynay inaan horta tacliinta aan ka dhigna bilaash tacliinta sare bilaash oo sidee dawladda hadda waxay qoondeysay oo ay sii daysay taqriiban 31 bilyan oo lacagta Kenya ay tahay arday kasta oo Kenyan oo school ku jirana waxaa loo qoondeeyay lacag gaaraysa 22,000 ya isku kalasi buugaagtina uu ku akhrisanayna dawladda way gada marka waxaa la yiraahdaa transition ardayda iskoolka hoose iyo ardayda iskoolka sare waxaan rabnaa qof kasta oo iskoolka hoose soo dhameeyay oo natiijo fiican haysto inuu cida joogin oo guriga uu joogin oo la geeyo iskoolka sare marka boqolkiiba hadda 85 ardayda way galeen iskoolada waxaa la yiraahdaa free secondary education dawladda 5 sano hadda waxay rabtaa inay ku jirto inay railwayga ama treenka casriga oo passengerka iyo xamuudka qaadayo inuu gaaro wadanka Kampala waxaan kaloo ku tala jirnaa inaan dekad cusub aan ka furno magaalada xeebta ku taalo oo la yiraahdo Lamu dekadaasna waxaa loo qoondeeyay inay isticmaalaan wadanka Ethiopia dekadaas waxaa la socdaa wada gaarayso 600 oo kilomitir oo soo marayso gobolka waqooyi bari wadadaas magaalada Lamu bay ka soo bixi xeebta waxay soo mari countiga Garissa Isiolo way mari ilaa Marsabit
meeshaas ay ka galaysaa Ethiopia iyo South Sudan marka labada wadan Ethiopia iyo South Sudan corridorkaasna waxaa la yiraahdaa Lamu Ethiopia South Sudan corridor dekada sayto waxaa rabaa Lamu inay labada wadan isticmaalaan waa dekada waxa casri oo la hagaajiyay wadada sayto oo gobolka waqooyi bari sii mari qayb ka mari waxaa la socdaa trainkii xamuulka qaadahay waxaa la socon doonaa bombadii shidaalka waday oo ka keenaysay shidaal ka keenaysay countiga Turkana ilaa iyo South Sudan shidaalkii la rabay in lagu dhaqo dekada ayaa meesha marka waxay furaysaa fursad siinaysaa in gobolka waqooyi bari khaasatan Garissa County u furmo adduunka oo wada casri ah train casri ah bombadii shidaalka marka waqti badan ayaan ka soo shaqaynaynay dad badan baa yaa ka horjooday oo lahaa dhulkaasi waa dhul lama degaan ah waa dhul nabadgelyadiisa ay saxayn hadda laakiin waan ku guuleysanay wadanka inaan gobolka naga dhisno waxaan kaloo sanadkan ka shaqaynaa in qof kasta oo wadankan u dhashay muddo 5 sano inuu helo caymis bilaash universal health care oo hata ninka dhalinyarada wadankan oo shaqalaanta hadduu xanuunsado inuu kaar wato oo isbitaalka ugu dhow uu tagayo uu iska daaweynayo waxaan kaloo 5 sano ku tala jirnaa inaan 500,000 oo guri la dhiso wadankan waxaa jira magaalooyinka weyn guryaha la'ay so 500,000 housing units in la dhiso ayaa lagu tala jiraa waxaa kaloo lagu tala jiraa wadankan oo muhiim ah in dhalinyarada wadankan loo sameeyo shaqooyinkii waxaa lagu sameeyay in warshadaha wadankan la badiyo ka dawladda waxay ku tajirtaa 5 sano in alaabaha dibadda laga keenayo oo la soo habeeyay la joojiyo oo dadka fursad la siiyo inay warshada wadankan ka sameeyaan inaan waxaan ku tala jirnaa inaan dhisno meel la yiraahdo industrial park oo dhalinyarada ay shaqo ka helaan marka arrimahaas ayaan ku tala jirnaa 5 sano xisbigan inaan sii xoojino oo hoggaanka uu sii hayo mudane Soomaalidu door muuqda ayay siyaasadda dalka ku lahayd waana filayaa wali inay ku leedahay oo qofkii saddexaad ee dalka ugu sareeyay waa adiga markii laga yimaado hay'adda sharci dejinta oo ama baarlamaanka laanta fulinta dhawaan madaxweynuhu wuxuu magacaabay ku dhawaad 6 wasiir ilaa iyo hadda wax Soomaali oo ka soo dhex muuqday male horeyna Soomaalidu xilal sare ay dalka uga haysay sida wasaaradda dibadda ambassador Amina iyo Yusuf Xaaji wasiirka difaaca ahaan jiray boosaskii siyaasadda Soomaalida ee sare ay ku lahayd golaha fulinta miyay meesha ka baxeen mise wali waa jiraan horta madaxweynaha wali muusoo shaacanin golaha wasiirada wadanka golaha wasiirada wadankan sidoo dastuurkan qoray waa 22 madaxweynaha hadda 9 uu sheegay waxa uu dhiman 13 ka u dhiman kibisti ay ku lahayd ummadda Soomaalida way jirtaa annaka dawladda iskagama jirno passenger manihin annaka agi maaragtay loo xal akhrin sheekha ayaa hogaaminaya ayada markay ku soo martan adiga waa akhrin dadka garanaya igla subcinayo annaka meeshan ciyaarta waan ku jirnaa meel fiican waan kaga ciyaaraynaa marka Soomaalida laba wasiir ay ku lahayn labadoodii wasiir insha Allah waa la heli inkastoo annaka madaxweynaha anaga ayaan kan dambeynaa laakiin madaxweynaha daarood markuu sameeyay wuxuu sameeyay isbedel fara badan ninka loo dhiibay ciidamada wadankan administration police-ka waa nin Soomaaliyeed oo ka soo jeeda gobolka degmada Garissa ninka maanta ilaalinayo ciidamada ilaaliyaan madaxweynaha wadanka Kenya ninka ugu sareeyo xukuumadda wiil Soomaali lama arkin wadankaneeto inta soo madaxweynaha soo martay ninka maanta escort commander-ga marka annaka madaxweyne Uhuru Kenyatta hadanahay ummad zaid u noo sharfay aniga meeshan fadhiya baarlamaankan waxaan ahaan jirnay 13 maanta xildhibaaninta Soomaalida ee baarlamaan ku jiraan waxa weeye 31 saddex gobol aan leenahay lacagta ay helaan oo dawladda sare ka helaan taqriiban isku daro sanadkii waxa weeye 30 bilyan
ولعت كينيا هيدها دولية هين أو independent commission كه هيد أي سوماليدا أي كجرين ماله مركا هدله دقالها جناعسي ودن كان تقريبا سوماليدا قوسان قالوا في القبيلة هان أيك أوريان شذالك دك كانوا دك بدأ عذا كانوا دك جريها لسه سوماليدا واحد مقالة نيروبي سي بي دي وحنقول دوري لباتن ريستوران نقول نهاي طبعا سنة هذا كله ما يجري مركا ميديا كجرنا مركا سوماليدا ويد دالين إلهي بنعمي شيء كم كان وحاول سوماليدا من نما كم كان من نما ميري جوجامبو ممدا سنو كان جوجو مينيسوتا كان جوجو حمر كان جوجو غاريسا كان جوجو نيروبي عذر كانسر أولي قبيل أيا قلي مركز سوماليدا وزير كلين كندا وزير كنديا أنتوا هو مالي أحمد مركز مينيسوتا وكل هذه حلبان قولها دجانك هاوس اوف ريبريزنتيف جبر في عن وشرب لا كنت ماشي انت هو مات الهان عمر مركز waddan kan waqti waxaa jirta ani aaban dhalanin oo la dhigi jiro Soomaalida waxaa tiin burcad laakiin maanta Soomaali waxay noqotay dadkii ninkii ilaalinayay ciidamada madaxweyne Uhuru Kenyatta ilaaliyaan ninka madaxweyne waa wiil Soomaali ah marka taa waxa ku tusaysaa Soomaalida in kalsooni lagu aaminay ana la dhiibay gurigii baarlamaanka Kenya oo dawladda central u ahaa intaasoo xildhibaan maan leenahay وزيرها نقول يسون قناين حويات جوكتان كلنا قرعسيا كجرا أي بلشدة إلى آخر رأسينا الصومالية ودن كنا قيوين بهقاتن هرمركا دين الإسلام مساجدها وعلاقة أجره مدارس وحدثه واحد دين تفافيه وصومالية مركا وحلينا هاي إلهي ولا نعميي أن ددالنا كراس أن هاي سنة مو كراس كبدا أن سيرات سنة برلمان إست أفريقيا اللي عدينا يا برلمان كنيتو سهال قفا اللي عدينا سدح صومالي بين نقدن كينيا كسعودان سهال كينيا كسعودين سدح صومالي بين نقدن مركز صومالي دينا هرمرتي صومالي جيبوتي سا هرمرتان منا صومالي دا اوغادينيا او اثيوبيا صومالي انا حرمنا اني مدحوينه فرماجو iyo برايم مينستر خير يكنا فرصه la siiyo شانس وقت baa la siiyay waa la doortay inay kabaha laga goynin egay socdaan oo loo ogolaado oo la garab istaago oo qabiilka laga joojiyo oo social media ga laga joojiyo oo muwaafaqo la yeelo oo dawladda Soomaaliya sharafta Soomaalida ay lahaayeen wadan ahaan dad ahaan diin ahaan in dib loo soo celiyo la rabaa marka insha Allah waan leenahay Soomaaliya ha noolaato mudan arrimaha xuduudda maalmihii u dambeeyay waxa ka taagnaa booq la xiriira balad xaawiye Mandheera oo la sheegay in Kenya ay darbi ka dhisaysay arintaas oo Soomaalida dhinaca kala degan ay aad uga caroodeen taasoo keentay in dawladda Soomaaliya ay wafdi u soo dirto wafdigii yimid balad xaawo ee dawladda ka socday jawaabtii uu ku celiyay Muqdisho iyo adinka Kenya ahaan maadaama Kenya ay tiin Soomaalina tiin arintaas doorkiina ku aadana faahfaahinaysa horta waxaan rabaa inaan dadkii dhageysanaan u sheego waddanka Kenya dhul uma baahno dhul weyn oo bad leh oo buuro leh oo meelo badan oo roob badan ka da'o oo caleenta shaha iyo lagu beero dhul barwaaqo Kenya way leedahay Kenya dhul uma baahno oo hadda maanta wadan yar oo jasiire ah oo rabta inay dhul wadan kale oo jiraan oo walaal ah inay boobto malo maqada Soomaalida waxa la rabaa inay sheekada xuduudka ay ka dhigin fadhi ku dirir Soomaalida sheekada dawlad inay rabaa inay ka dhigaan fadhi ku dirir meelaha BBC lagu dhageysto yee rabaan arrimo dawlad arrimo maartay dawlad inay ka hadaan fadhi ku dirirka Soomaaliya waxa kale ku mahmaadaa oonka maxaa keenay oonka waxaa keenay qorax ma tabsamo derbi inaan dhisno maxaa keenay
waxaa keenay dhibaatooyinka ay nagu hayaan al-shabaab oo ka soo joodaan waddanka Soomaaliya dowladdii madaxweyne Kenyatta dowladdii Moi dowladdii Kibaki kudib waxay u dhisi waayeen marka xaalada amni dadka way u furnayd Soomaalida xoolo dhaqatada markuu roob ka dhaco Soomaaliya Ethiopia way gudbayeen markuu Kenya ka dhacana dadka Soomaaliya degan Ethiopia way soo gudbayeen amni darrada ayaa nagu qasabtay inaan derbi dhisno waad garan 2015 arday gaarayaan 145 oo masiixiin ah yaa inta laga miray ardaydii kale oo Soomaaliyeed yaa lagu gowracay lagu laayay magaalada Gaarisa in laga soo doorto intaas soo dada lagu laayay oo masiixiin lagu laayay Mandera iyo Wajeer marka annaka hata gobolka annaga wuxuu galay khatar hooyooyinka annaga soo fiiri weyne marka dowladda Kenya waxaan ka barinay inay amniga noo sugto wiilal Soomaali baa la geeyay amniga hadda waa la sugay marka guddigii loo dirayna sidii anil ii sheegay eegaan la hadlay dowladda Soomaaliya guddigii loo diray oo technicalka waxay dhaheen Kenya waxay ka dhisaysaa derbiga bulaxa u dhaxeeyo iyo Mandera siduu borderka u yahay oo waxa hadda la dhacay malaho marka badda hadda la isku haystaa badda waa la xalay anaka badna uma joogno bad hadda wadan oo Uganda oo kala ama Rwanda helo oo bad rabto anaka bad Soomaaliya bad weyn bay qabtaa anagana bad weyn aan leenahay marka ummadda Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa Kenya iyo Soomaaliya waa laba wadan oo kala maarmaynin Soomaaliya Kenya zaid ay u baahan tahay ummadda Soomaaliyeed oo hadda ka ganacsata Nairobi ama Kenya joogto waa dadkii badi soo qaxay waqtigii dagaalada ay ka dhaceen 90s maanta Kenya waxay u tahay Soomaalida gurigoodii labaad ay u tahay annagana diyaar u nahay inaan Soomaalida garab istaagno inaan wadankooda dib oo la soo dhisno madaxweyne Uhuru Kenyatta ballan u qaaday ciidamadanada lagu laaya maalin kasta Soomaaliya oo shabaab ay ku laysaa dhiig badan baa naga daatay hooyooyin fara badan ayaa wiilashoodii ku waayeen laakiin hadday Soomaali nabad ahayn Kenya nabad ma noqonayso marka annaka dowladda Jubilee annakoo waxba ku wadanin dhaqaalaha annaga uu dhisan yahay wadanka anaga uu dhisan yahay dhinac kasta oo fiirso marka laakiin dan ayaa nooga jirta inaan aragno wadan nabadgelye oo xasiloonan oo dadka shacabka Soomaaliya ay wadankooda si fiican uga shaqeystaan taas ayaa naka mabdiga anaga marka waxaan leenahay dad kale Kenya baa dhul boobaysa Kenya baa sidan le oo fadhi ku dirka fadhiyaan iyo social media danta Soomaaliya kama shaqeynaysiin waxaad rabtiin Soomaalida inaad barakicsiin oo aad wadamo badan ka barakicsiin marka waxaan leenahay Soomaali meel joogtabo Kenya way u baahan tahay Kenya waa Soomaaliya u baahan annakana daan nahay dadka la shaqeeya madaxweyne Uhuru Kenyatta habeenii maalin waxaan ka shaqeynaa sidii loo xoojin lahaa nabadgelyada iyo xasiloonida iyo dib u soo dhisista institutionka governmentka institutionka ee wadanka Soomaaliya sidaad ka dhawaajisay xildhibaanay waxaa jiray heshiis ay kala saxiixdeen Kenya iyo Soomaaliya markii madaxweyne Farmaajo la doortay heshiiskaas qodobo badan baa ku qornaa mid kamid ah hadda xustay oo wuxuu ahaa arrimaha xuduudda qodobadii kale oo ay kamid ahayd arrimaha fududeynta safarrada sida wajiya oo la sheegay dadka in lagu dhibi jiray marka hore ay soo mari jireen iyo fududeynta viisaha Soomaaliga oo qofka inuu on arrival ku helo lagu heshiiyay ayada maxaa ka hirgalay wala sameeyay diyaaradihii soo mari jireen wajeer waa laga qaaday maanta meeshaad rabtaad u duuli ee wadanka Soomaaliya hadaad tana Garowe ka degto Kismaayo ka degto Xamar Hargeysa Boosaaso anaga waxaan u furnay nin kasta oo Afrikaan ah kontinentka qaaradda Afrika nin kasta wadan kasta oo Afrikaan ah
hadduu rabo dadkiisa inay imaadaan wadanka Kenya magaalada Nairobi viisada waxaa lagu siini airportka ama Soomaali ha ahaado ama Ethiopian ha ahaado ama Eritrean ha ahaado ama Suudani ha ahaado ama Nigerian ha ahaado marka waxaana u furnay inaan Afrika mid ka dhigno inaan dhaqaalahanaga aan ku xoogaysiino oo Afrika ay noqoto meesha kali oo Kenya ay noqoto meesha kali oo Afrika looga soo duulayo hogaamiyaha mucaaradka mudane Raila Odinga wuxuu sheegay in dhawaan la dhaarin doono qorshaha xisbiga talada haya ee Jubilee kaga aadan xisbiga mucaaradka muxuu yahay ma wada hadal in la gashaan midinka go'anta wala hadal wadankan wuxuu dhacaa waqtiga doorashada wadanka Kenya ayaa wadan ma oo jabhada haystaan jabhada ayaa wada hadal galaan xisbiyadana waxay wada hadal galaan markuu xisbiga uu dawladda uu dhisi waayo sida wadanka Jarmalka kale oo doorasho gala galo haddii uu soo bixi waayo hal xisbi oo majority leh marka xisbiyada ayaa fariisan wada hadal la gali qasa dawlad isbahaysi la soo dhisay wadanka Kenya wada hadal wuxuu galay doorashadii 2017 bishii 8 iyo bishii 10 madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa la doortay baarlamaankan wuxuu ku leeyahay 216 xildhibaan aqalka sare aqalka hoose sanadkana wuxuu ku leeyahay taqriiban 85 gobolada dawlad goboleedkana waa 47 gobol dawlad goboleedaan leenahay taqriiban 35 waa xisbiga asaga uu ka soo jeedo oo talada hayo baarlamaanka aan fadhiyo annakana waxaan qaadanay kuraastii xisbiga dawladda ama talada hayo Raila Odinga iyo xisbiyadiisa isbahaysiga NASA waxay ayakana qaateen kuraastii loogu talagalay mucaaradka marka wadankaana waxaa jira mucaarad iyo dawladana way talini mucaaradkana dawladda ayuu ilaalin sidii Mareykanka iyo dawladaha kale marka madaxweyne Uhuru Kenyatta waxa laga soo dhiso dawladda soo dhiso golaha wasiirada bacdu soo dhiso golaha xogayaha joogtada iyo safiirada wadanka anagana dastuurkiisa wuxuu qori ninka ugu hooseeyo oo xildhibaanka ah dawlad goboleedka ilaa madaxweynaha sidii lagu dhaarin iyo meesha lagu dhaarin iyo ya shaahid ka noqoni dastuurka ay qoran tahay marka nimankan hadda leeyahay way isdaarinayeen waxa weeye un dad meel muraad isku imaaday oo neef qashe oo bariis cunay ka bacdi sheekada meeshaas ay ku dhamaanaysaa marka annaka hadda wax weyn ma siinayno ama bariis dhaariyaan ama birdi ma dhaariyaan madaxweynaha wadanka markii la dhaariyo waa inuu joogo ninka garsooraha maxkamadaha wadanka meesha lagu dhaarin waa in la shaaciyo waqtiga la dhaarin madaxweynaha wadankan waxa weeyo 4 saac iyo ilaa 8 saac u dhaxaysa in la dhaarin waa madaxweynaha wadanka markii la dhaariyo qalab xajda loo dhiib oo leeyahay instruments of power marka waxa weeyo nimanka mucaaradka xisbiga mucaaradka taqriiban hadda waqti laga joogo 7 sano ayaan qayb ka ahaa oo markaan siyaasad soo galay Raila Odinga baan isku xisbiyeed aniga William Ruto marka nimanka waa niman xumba qaaday mar labaad baday ku jiraan xumba qaaday meel ay qabsadaan bay leeyihiin marka waxaan isku soo noqonaynaa insha Allah 2022 marka anaga insha Allah aan soo joojin doono musharaxanaga waxa weeyo William Ruto madaxweyne Uhuru Kenyatta marka asagana qalabkiisa ayuu diyaarsan shaarka xisbigu xirani sifa uu ololeeyo ku-xigeenkiisa inuu aqalka madaxtooyada uu la wareego adiga 2022 way ka dhamaanaysaa tartanka xildhibaanimada sidaan filayo maxaa ku qorshaysan kadib wax badan ay qorshaysan afayeenka baarlamaanka waa noqon karaa ama intaan iska baxo siyaasi gabigiisaba waxaan noqon karaa wasiir laakiin maadaama waxaan ku tala jiraa inaan qayb weyn ka qaato sidii loogu ololeyn lahaa ninka aan saaxiibka nahay isku xisbi nahay madaxweyne ku-xigeenka William Ruto
marka hadduu William Ruto madaxweyne u noqdo hataa haddii hataa aan iska fariisto guriga boqortooyada oo aan u noqdo secretary oo ummadda Soomaalidana iyo muslimiintana aan meesha ka soo maamulo taas hataa way deeqdaa madaxweyne inaa isu sharaxdo ma laga yaabo إن شاء الله هدو ودنك نظامك هدو يسبدلو نظامك دولة لماذا ودنك حاجة ودن نظام لي هذا parliamentary system أو prime minister أو ملح وياي هذا والله لينا يعني prime minister وحوي حزبك أو طلب بدن أو حلبان بدن ما دام الصومالي ذا أي تهاي تقريبا هذا إلا باطن يدور حلبان حول دقتنا oo tira badan yihiin baarlamaankan marka hadii nidaamka Kenya lagu bedelo marka prime minister isku sharaxa Soomaali badan baa qurbaha ku nool oo kumanaana Kenyan Soomaali Kenyan baana kamid oo hadda gobolka aan ka nimid oo kale aad bay ku taageersan yihiin codka aad gaarsiin lahayd muxuu yahay Soomaalida meel ay joogaanbo ama Kenyan ahaadaan ama Soomaali kala ahaadaan waxaan rabaa inuu halmbalyeeyo way garab istaageen kuwa way soo kaceen oday ii rideen magaalada Gaarisa kuwa waxay sameeyeen waalidkood iyo aqraabkooda ay ila soo hadleen kuwa waxay sameeyeen fundraising bay ii sameeyeen kuwa waxay ugu support gareeyeen social media-ga Twitter-ka iyo Facebook ay ugu support gareeyeen kuwa ay culimada u badan yihiin meel joogaana way ii soo duceeyeen marka Soomaalida contribution kooda ma soo koobi kari anigana waxaan ka ballan qaaday inaan noqdo nin xildhibaan oo Soomaalida u hiiliyo oo meel ay joogaanbo codkeyga iyo xoogayga iyo aqligeyga inaan ka ciil tiro oo aan u hadlo oo aan garab istaaga ayaan Ilaahay ka baryay ayakana waxaan dhihi lahaa wadanka Kenya waa wadan fiican waa wadan degan waa wadan dhaqaalihiisa sidii reer galbeedka kale ku soo noqda iskoola fiican wali caruurtiina keensada diinta hanay bartaan diinta xoog ku leh diinta islaamka fursad badan ayuu ida siin xagga dhaqaalaha dadka hadda badin Nairobi investment ka sameeyay waxa weey dad qurbaa ku nool waxaan leenahay imaada wadanka maalna geliya regionka idilbo ayuu madax u yahay inkoo Kenya joogtiin ayaa ganacsi ka sameyn karteen South Sudan iyo Uganda iyo Rwanda iyo Burundi iyo Tanzania walaalihiin baa degan dawladda ku jiraan baarlamaanka ku jiraan ciidamada ku jiraan dawladda ka shaqeeyaan wasiirro waayo marka Kenya waxaad ku haysatiin wadan kale kuma helaysiin waa wadankii labaad waa gurigii labaad ee ummadda Soomaalida meesha joogto annaka waan soo dhaweynaynaa imaada gobolka annaga taga investment ka sameeya annaka waan garab istaagaynaa mudane waa mahadsantahay waa kaaga mahadcelinayaa wareysiga aad nasiisay